gabadhan waxaa lagu magacaabaa Hani waa gabar aad iyo aad u buur maalinta dambe miisaankeeda uu sii kordhaya sida buufinta oo kale gabadhan maalinta dambe miisaankeeda ku sii kordhaya jirkeeda wana soo carraysa meeshan iyadoo fadhida wiilbana iyadoo leeban jirkeeda wax ku soo kordhaya dhammaan dharku yaali xaafadeeda ku wada yaraanayaan sababtoo ah sii kordhaya markii dambe jirkeeda hatta markay wadada socoto waxa kordhaya miisaankeeda sababtoo miisaankeeda aad u culus markay xaafad timaado ay kursi ku fadhiisato kursigii waa uu ka jabaya isla markii gabadha markaan waxay dareemaysaa inay ku jirto nolosheeda intii ugu xumeed raashin cunisteeda zaad uu yahay miisaankeeda zaad uu sii kordhaya laakiin waxay bilaabaysaa inay iscaateeda markaan walibana iyadoo ka baqaysa markii dambe inay sii caayisho waxayna sameynaysaa almiintoon kala duwan walibana jirkeedu waxay xiraysaa kanina waa saaxiibka yaraanteeda waxayna ka sheekaysanayaan yaraantooda walibana yaraanteeda waxay aad u jeclaatay inay burato iyada markaan wuxuu taagan iyada garabkeeda mar walbana wuxuu rabaa inuu iyada oo kaliya u caawiyo sidii ku caawtoolad inuu ku dadaalaya walaal markaan wax walba loo keen raashin way cunaysaa midna ka mareeys dhammaan raashinka loo keen meesha la soo dhigay way wada cunaysaa keedana markii dambe soo kordhaysa soo bixaysa waxaan su'aalaysaa laamiga waxaan arkaysaa bakeelaan yar oo fadhiya wadada sayna bilaaysa bakeelaan yar inuu soo qaado xaafadeeda kadibna meesha imaanaysa hamar meesha ku dhaxdhacaysa gabadhii meeshan waxa ku jira ninkan sixroolaha markaas wuxuu ku dhahay geedani ma taqaana gabadh uu soo tuura dhankeeda gabadhi markuu jirkeeda soo gaaro hal mar ay caata noqonaysaa weyn yaraanaysa gabadhi sideedii hore ay ku soo laabanaysaa aad iyo aad u qurux badnaanaysa kan gabadha bilaawaysa inay shopping soo sababtoo ah markii dambe soo qurux badnaanaysa oo jirkeeda wuxuu sii noqonaa mid aad u qurux badan soo jeedin kale marka la joogo nolosha caadiga gabadhan weli jirkeeda sidiisii ay u buuran yahay mana ahan caato laakiin marka la joogo nolosha kale qiyaaliga gabadhan gabar aad iyo aad u caato maalmo kadib ay soo baxaysaa walibana eedii ninkan wuxuu imaanayna meeshan kadibna waxa uu sii laabanaa ninkii sixroolaha ahaa gabadha mar jirkeedu waa buuran marna caato noqonaa sixrooliya ay imaanaysaa waxaan ku dhasay jirkeyga maxaa ku dhaca maxaas iga khaldan aniga oo maxay ku soo kordhaya mar waliba markaas ay gabadhi waxa ku dhasay saaxirkii ma loo isticmaali karaa sixirka jaceylka laakiin isaga wuxuu ku dhahay ma loo isticmaali karo qof bini'aadam laakiin waxa loo isticmaali karaa jirkaaga oo kaliya si murugoyn sameeyay soo baxaysaa waxaan imaanaysaa saaxiibkeeda yaraanka ah walibana iyadoo ku dhahaysa aad iyo aad u mahadsan tahay sababtoo ah mar jirkeedu buuran marna gabadhan jirkeeda caata iyo noqonaya adigana daawada ilaa muuqaalka in like noo saarto mahadsanid